نعيد مسي حدق يهي عدقاي نعيد مسي عرذا كليقا آذو لردي عدعيد دسيدي دعان نقوي كلام ربع halkan in idin kaga cadeeyo in dawladdiinu idin garab taagan tahay meesha aad tagtaan aan leedinku ilaaweyn biyaha leedinka daba qaadi doono mushaarkiina bil walba aad heleysaan xuquuqdiina caafimaad la sugi doono leedinku ogaan doono meesha xuquuqdiina la sii hagaajin doono hadii Ilaahay yiraahdo waa laga baxay waqtigii askari Soomaaliyeed oo dalka u dagaalamaya aan xuquuq la siinayn waa ku dadaaleynaa xuquuqdiina oo dhameystiran mar walba inaad heshaan waa laga baxay waqtigii askarta ciidanka iyo dawladooda loo dhaxayn jiray waa laga baxay waqtigii dad la idin soo mari jiray nidaamkii waa idin degsan yahay shaqadii waa idin socotaa idinkana waxaa la rabaa cadawga inaad sii riixdaan ilaa aad ka cirib tiraysaan annagana waxaana la ka rabaa xuquuqdiina inaan sii wanaajino ma aha inaad weysaan waxaa la rabaa inaan sii wanaajino markaan arko wiilal Soomaaliyeed kowdii habeennimo oo diyaar garoobay waxaan kaliya ku qancaayaa dalkeena inuu rajo leeyahay waxaan kaliya aqbalayaa in waqtiga farxadda ay soo dhowdahay xerada General Gordon oo lagu tababaray ciidamadan ayaa waxa horay uga qalin jabiyay dufcado ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo qayb ka qaatay howlgallada argagixisada looga xoreeyay magaalooyin ay horay ugu sugnaayeen halka ay ciidamadu ka hirgeliyeen dhaqamo wanaagsan iyo isdhexgal bulsho oo horseeday in ciidanka iyo bulshadu ay wada shaqeeyaan isla markaana lagu soo celiyo nabad iyo xasilooni. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.